هواي إثيوبيا ويكرتجي إثيوبيا وكرتجي بالله يا مدنا هذا أركيس حضرنا وكرتجي لا ويكرتجي قول فكرتجي برك marka horta colaad badan baa jirta laakiin canfartu iyo Soomaalida colaadeeda waxa horinayaan Abiy iyo dawladiisa laakiin waxay ogeen colaadaas nasiib xuma afartii oo walaalahayaga ya dadka dabka la saaraya laakiin waxaan ku aaminsanahay inaana Soomaali waxba laga qaadi karin horta waa in horta meeshan marka la isku imaado oo laga doodo oo wax maartay baxthi la sameeyo cudurka horta hal helo kadib dawada marka kadib dawada waa la raadinaya aan waxaan aaminsanahay cudurka Itoobiya inay tahay ku soo dhawow Royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda waan ku fahmay mana farxintaasna uga gudbinaa Kenya arrimaheeda waxaan u tagaynaa deegaanka Soomaalida iyo canfarta dagaal baa u dhaxeeya muddo socday waxa la isku haystaa deegaano dawladii hore ee Cabdi ay canfarta lagu wareejiyay canfarta kuma ekaan intaas deegaano kale oo cusub bay gudaha soo galeen maalmihii u dambeeyay hadda muddo bul ku dhawaada dagaalada Socdeen ka soo Soomaalida horumar ay sameeyeen sidoo u aragtaa nin siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo falanqeey wallahi dagaal ku dhaxay Soomaalida iyo canfarta wallahi canfarta iyo Soomaaliya culamo dhaxay maxay isku dilayaan marka canfarta cidda doonayso inay كرات قضت لأن هذا الجيش ما كان لأن هذه دارات كي هذا الجيش هاي بريور هاجر تام حارية تقري وحكى الشقيسته وحا ودنك عنتك وهاي وحا قبل كاس عن فرتك هاي استوى دم هرتوا على ماذا قرأ بمشتري هذا شغاله هذا ما قاعد بيعفرس كايسته وأنا ضد انتقاد يا الله ظلمي عن فرتك وأقول أنا جرين وأد ودب الحسن وأنا ضد Soomaalida la dhashay ay fahamsan waa dad Soomaalida la dhashay marka laba siyaababa waxay u tahay Ethiopia nin kastoo adsaba joogo markuu systemkoodii xagga uu ku fashilmo oo wadanka uu kala wadi waayo colaad Soomaaliyeed nagu raadsada قوميدنا ولا اسكو ديرا قوميدنا ولا اسكو ديرا marka tan hadda siligina wuu jiraa wada gartay Soomaa Zeylac iyo Lughaye iyo wixina way dhowdahay Hargeysa hadii iyadana way culeyskeeda iska leedahay musabix culeyskiisa iska jira meesha wada fahamtay Soomaa Oromadii oo iyadana isku kacsan amxaaradina colaad ka dhaxayso shalayna Tigreedi intii la isku tagaysana waanta loo burburiyay haddana maanta uu Tigreedi intuu garab siiyay amxaaradii dhulkii walqayd iyo dhulkii oo dhanba ay ka qaadanayaan annaga dhanka annagana wuxuu isleeyahay Itoobiyaanka way kaaga degayaan haddii aad ku dhawaaqay una socon laaday waxa waaye Itoobiya ويكرتجي إثيوبيا وكرتجي بالله يا مدنا هذا أركيس حضرنا وكرتجي لا ويكرتجي قول فكرتجي برك وحير بريء هوري رجل بيت كاي وحاس أي هذا مال ما أرتكا كعبي مركي علاج كوين ما هذا بدنا يجيب بجنب خبري لكن هذا ما أنت أورم ريجن حظوظ أي علاج كصوته معارضي محيي تجريدنا وي ويسكو وريرين
dhulkii shalay uu abiy la qabtay in maxaaradii ay ka soo goyso Tigray haddana badanaa Tigray baa dib u qaadanaysa oo ciidanka dowladda ayaa kaalmeynaya oromada dhexdeedana colaad baa ka socota waad gartay Soomaa afartii Soomaalidana colaad baa dhexdooda laga beeray marka horta waxaan waa wax fara badan oo isku qasan oo Soomaaliyana dhul bay ku sheegatay Soomaaliya fahmay Soomaalidana way ciidan Ethiopian ah wali Soomaaliya ku dhex jira Ethiopia xaaladeeda way adagtay wata geeska Afrikana xaaladeeda markay gacanta ka baxdo saameyn bay ku yeelan geeska Afrika oo dhan maxaa dad yar maaha Suudaan oo ay madaxa ku hayaan way burburtay South Sudan burbur wax yar bay ay dhantaa Soomaaliyana hadda waxa weeyaan khawaarijtii iyo wixii iyo dhib badan ba iska jira marka horta intaana waxa ku dhex jiraan oo dhex ordahayaan dowladihii weynaa oo reer galbeed oo laakiin proxy war imaaraadka iyo wax lamid ah oo isticmaalahayaan imaaraadka iyo wadamaha khaliijkana inta badan waxay iyaga ka cabsanayaan haddii ay nabad dhacdo oo geeska Afrika uu dego in shidaalka Soomaaliya la soo saari gaaska Ethiopia la soo saari magartaalkii meelo badan wax ka soo baxayaan taana way dhibaysaa siba shidaalka Ethiopia shidaalka Soomaaliya gaaska Ethiopia hal su'aal baa ku jirta hadii waa dhul maaragtay aan aad loogu kala bixin waad fahamtay Soomaa sida hore abiy uu ku socday hadii ahaan lahayd rajay lahaan lahayd laakiin abigan soo majiiray idana wax it has its own dynamics wata xaggan Kenya iyo maxay ahayd Soomaaliya waa kibariga intay Faransiiska iyo wax soo dhaxgaleen iyo Eni iyo niman la dhaho Total iyo iyagana blockyaal la isku haystay wada gartay Soomaa inta waxaan anaga waan ku dhex jirnaa waan aragtaa wadanka kali oo degan buu laakiin labadan bari idana boqboqan yar baa iska jira Djibouti waa Ismaaciil waa wareeray waad fahamtay Soomaa waana gartood maxaa wadan aad u yar oo meelo badan ay kaga xiran tahay nolosha dekad bay qabaan dekadaas Ethiopia bay alaabta geysaa inkastoo dekada hadda ay aad ugu baahan dooneen Ethiopia alaabta uga soo degayso oo transshipment ka maartay ya aad ugu ya meel fiican ka la marayaan oo tartan hadii aad looga shaqeeyo tartan culus ay gelin karaan laakiin hadda iyadana dhibka ka haysta waxa weeyaan baabul mandabki baa ya Xuutiyiintii iyo maartay Israa'iil dagaaladii baa ka dhacay iyadana culays baa imaaday marka way sida hore ma sida hore wax lagu haystay ma jirto oo Suez saa loogu ma socdo marka horta colaad badan baa jirta laakiin anfartu iyo Soomaalida colaadeeda waxa horinayaan abiy iyo dawladiisa maxadan ugu jirta waxay iska dhaadhicin hayaan colaada ha socoto oo qabiil ahaan ka dhigaan deegaanada Soomaalida hal maartay soo qabsadaan lugayana meel fog ma jirto marka halkii haday noqdaan hadda way noqotay Ethiopia ilaa aan waxay basar iyo xoogba waan ku helanaa dekad dul Soomaaliya leedahay qabsanayna weeyaan tiina ma dhamaanin waad gartay Soomaa marka way iska jeceliin colaadaas oo socoto laakiin waxay ogeen colaadaas nasiib xumo afartii oo walaalahayaga ya dadka dabka la saaraya laakiin waxaan ku aaminsanahay inaan Soomaaliya wax laga qaadi karin boqol jeerna federaalka keenan ciidamada federaalka la joogaan ka kale qof kastaasiyaan wax kastaasiyaan Soomaaliya isku tashatay bay adagtahay sida wax looga qaado laakiin in nabadeen la sameeyo labada qowmiyadood ka baxsan Ethiopia wadamada ka baxsan hadda waxaan maqlay waxa inta ka dhici doona mar dhow shir weyn oo afarti iyo laga hadlayo oo aqoonyahan isku keenaya adduunka dhan iska keenay xagee ka dhacaya waxay ka dhacaysaa institute la dhaha Afro-Asia Institute for Strategic Nairobi weeyana yar Soomaali baa maxay ahayd ya CEO
بروفيسور عبد الوهاب عبد مدحوي aqoonyahan baan iskaga keenaya meel kasta Eritrea Ethiopia qurbaha Yurubka Mareykanka meel kasta oo laga hadlaya marka canfartii iyo Soomaalida arrinta ku dhaxsan wala keenay oo dhaxaysa arrintaas ma laga wada hadlaya wax kale shirka kama dhacayo waa dibka u dhaxaya canfar iyo Soomaaliya hadii Ethiopia ay labadu hoos yimaadaan oo Ethiopia ay dagaalkii horanayso waliba canfar la dhinac tahay iyo xal keeni kara marka horta waa in horta meeshan marka la isku imaado oo laga doodo oo wax maartay baxthi la sameeyo cudurka horta hal helo kadib dawada marka kadib dawada waa la raadinaya aan waxaan aaminsanaa cudurka Ethiopia inay cudurka inuu abiyan cid kale aan ahayn laakiin iyaga horta u imaadaan waxooda xorta ah maskaxdooda ka wada shaqeysiyaan ha helaan cudurka meesha ka imaanaya shirkadda dhulalka ee Safari Assets haddii aan sifeeyoon bulsho yahay Safari siday tahay wax ka sheego shirkadu ay mug weyn oo magaceedu sareeyo dhulal aad u ballaaran oo badankood la habeeyay laamidii barbar saaran oo bursalkeedna ku yaala Safari ka beegso Safari Assets iyada ugu sareyso bulshadii ku shamuumtay oo safaf loogu jira shirkadda dhulalka ee Safari Assets waxay bulshada ugu bashaaranaysaa inay magaalada Namanga ugu hayso dhul istiraatiiji ah oo saaran laamiga qarkiisa dhulkan wuxuu ku yaala goob cajiib ah waana buur hoosteed hawadu caadi ma ahan jawiguna ka sii daran waana halkii loogu talagalay in lagu noolaado goobihii waxbarashada ayaa dhinaca ku haya wuxuu dhulkani leeyahay ceel biyoodkii masaajid iyo buurta ood ku dalxiisi markii aad doonto qiimuhu waa macquul ayaysan ku dhaafin fursadan qaaliga ah wixii faafaahinaantaasi dheer Safari Assets kala xiriir Xasan Umal ama nambarka kale ama xafiiska shirkadda BBS Mall ku yaala ee nambarkiisu yahay LGB 33